الله تعالى wax aan horey loo arkin oo aan la filaynin baa nagu dhacay musiibo baa nagu dhacday dadkana maaragta ilaahay ha u fududeeyaan leenahay walaalaheen marka waana mahadsantahay boqolkiiba boqol ice aad joogaan intaan ka war hayno tuulooyinkay joogaan marka insha allah soo dhawaada asxaabta kale bismillahi raxmaan mas-uul haddaan anu hal abnida ku darsado maamada xaase waxaa arkay soomaali badan oo guri xagan ka hadlayso oo maxkamaday wax loo soo dhejiyey sax arrinkaasi wax inay inagu kooban maaha hadda ma garatay waa gartay anigu kuwa kalena luuqadeer kalena waa aqaanaa hindiyana waxaan kusoo bartay turkina waxaan kusoo barto iyaga laftagoodan ka dhageystay migrants guryada markaa ka galaa haye iyaga laftagooda waa 25 bishan 24 28 ayaa la wasiiyey maxkamadda ma garatay kuwa hindida miyaa mise turkida hindida turkida marka wax kaas wax Soomaali ka maxaa ishay ku eekaa meehe soo kale maxkamadaha badankooduna final maaha waxa weeye migrants maxkamadan hore ee isbarashada sax ya waa gartay marka iyagana saas oo kale safkay ku soo jiraan marka taas uma doonay migrants ma dhaxaas inaan dadka u yar sheegaan dhaho war wax inay ka tan ugu kooban maahay waxa weeye wana la wada qabaayo hindina way ku jir kuwa badan hindiya loo soo dhajiyay kuwa badan ma garat midaan saaxiibnahay fiican gabadhaasna waxay leedahay carabtan ka soo dhageystay carabtii iyo hindidii turkidii hadday dawla jiraan safka waa dheer yahay marka mid turkiyo anu aan maalin aanu xabsi ku jirnay adigu asal ahaan waa kurdi weela kurdidan turkida weeye baaso turki buu isku dhiibay waanu xabsi maalin wada galnay maalin ka soo baxnay sigal maxamed loo soo dhijiyay anna maxamed lima soo dhijinba dad iska warqaba ahayd waa suuciisa maalin waan socnaa sida bisha television muu maraya maxkamadii finalkii maaha waxa weeye tior haarinka hore weeye masterta hore weeye marka shaatka bisha muu maraya afcisha ka bacdi anigu maalin soo wada baxnayna William Maxamed lima soo dhijin maxamed lima soo gelin waa jirtay marka wax ka Soomaaliya ku saabsan maaha hindidina way ku jiraan turkidina way ku jiraan kulli kuwan kale Hispaanigana way ku jiraan beelad ما شاء الله إلهي أفضل يعيقنا لكن good to know information في عن ويان ما إيش هدي أنا الصومالي هنا وذكي الله وذا قيبين يبهاش وأرد مهم ويأرنت إلا أقادو إن شاء الله قوان كلي صوص صارين قوان ويلي مو نقناه مقران ساي شيء شرعي بيدوني ناس إحياء أنا كوركيا قلدان ترامي lakini siku tano mbele nilitoa kipenye nikokuona nothing is falling I'm okay kuja وغدا أوروبا واضح dadkan waan fahmi lahayahay missionary soo galayaan caawo waxaa markii hore diyaaradda ay ka duushay Mareykanka ka duushay India ku degtay hadda Kenya maraysaa miya ويا إلهي يقان مسؤول شرعي ورك لا سocotay ma garanay ninkan Trump administration kiisu waxay shalay tole ay soo saareen sharci ah wiil ma ansixin oo sharci wili muu noqon laba bilood bay u qabteen si dadka ama ma garanaysaa sheeg public loo soo bandhigo oo public ay go'aan ka soo gaadhaan oo public la dhageysto sharci bay keenay ah qofka ay mudiir ka soo dhaca ama wadanka soo gala ugu yaraan sanad inaanu ka shaqo aanu helin haatiri dadka deerka ka soo dhacay imika wixii ka dambeeya haye ugu yaraan intaas shalay soo baxay markin anigu leeyahay shalay bay soo baxday marka wiil lama sharciyeyn administration maxaa ahaa sheeg xukuumaddiisu un baa soo saartay sharciga 60 cisha la sugayaa dadyoga shacabka Mareykanka waxay ka dhahaan ka bacdi marka baarlamaanka loo gudbinayaa baarlamaanka hadduu ansixiyo Trump saxaya imika iyadoo warqad bay soo saareen dama baanti wili demo hirgelin oo wili mu shaqo gelin oo inuu hirgalo waxa ka horeysa 60 cisha ka horeysa 60 cisha ka bacdi baarlamaanka loo horgeynaya kadib inuu Trump saxaya waa gartay marka sharcigaas wuxuu sheegayaa qofka deerka ka soo dhaca ugu yaraan hasano sharci ma helayo marka wax Congress-ka looga dooday baabasi waa Congress wili mu gaadhin ba shacabka imka la dhageysanay dadku waxay ka dhaxaan marka xisbigan maarta ama xisbigood talada haya ama kuwan ma garanaysaa ay sheeg muxaafidka markay sharci soo saarayaan sharciga 60 cishay ay dadka u bandhigaan oo dadka ay u sharaxaan kadib dadka taladooda la qaataa dadku hadii taladoodu ma garanaysaa ay sheeg ay diidmo ay noqoto baarlamaanka lama horgeeyo adama garat marka
shalay bay soo saareen administration baa soo saaray yani wasiirada soo saaray markii horeba sidaa bay ahayd dadka dhahaya ma qofka hadduu hadda uu dalbiga kasoo boodo hal sano miyuu shaqo la-aan ahaan jiray shan bilood bay ahayd 150 cisho 150 cisho ahayd ayuu qofku sugayay kaarka shaqada oo marka maxay macno samaynaysaa dowladda canshuur baaba dhaafaysa arrintan dowladda bay dhibaato ku tahay waxay macna sameynaysaa waxa weeye dadka inay magaranaysaa ay ku talagelin markay Mareykan imaadaan inay ka shaqo helayaan oo mas'ala imika anigu markaan waddanka soo galnay maxaanu lahayn 5 bilood ama 3 bilood dad ka shaqo sugaysa in adarka ama abtiga ama ayada guriga ku ayaad ka shaqo la'aanaysa kadib shuruud kale ku soo xidheen oo ah waxaan eegaynaa xaaladda waqtiga lagu jiro haddii kiisaska magaranaysaa immigration hor yaalayay ay 180 cisho ay magaranaysaa ay go'aan laga gaari karayo kadib markaa ku sina ka shaqo waxa xaq aad nagu leedahay oo sanadan dhameystiray aniga qaarka shaqada ay isiya ma jirta badheyn waagi hore qofku dirka soo dhacay boqolka cisho tirsanayay xaq buu lahaa ka shaqo iminka sanad bay ka dhigeen shuruud ku soo xidheen aniga naga godaabi kulin ka shaqada ku siinaan ku siin adigu waa soo xariisanaysa marka sanad gaadhid aniga go'aan gaadhayna ama waan ku siinna ama kuma siinino hadama garata oo kiisaska gacanta ku hayna ayaanu magaranaysa ka talaabo qaadayna taasi waa mid kale labaadna way ku dareen kaarka shaqada lama cusboonaysiin qof kasto dambi gala qof kasto oo intuu kiiskiisu bandhig ahaa waddanka Mareykanka dambi ka galay ama magaranaysa shil haadu culus oo dad uu ku laayay ama magaranaysa ay xabsi inuu mutaystay oo galay ha noqoto ama adigu qof Mareykanka dambi ka galay 5 sano ka bacdi kaarka shaqada aan haysan markaan cusboonaysiino lama cusboonaysiin qof waddanka Mareykanka dambi ka galay mid kale saddexaadna ay ku dareen qofka hadduu maxkamad la kulmo oo magaranaysa xaakimku uu diido automatic man baa ka shaqada u istaagaya waa wareey automatic man ka shaqada u istaagaya maalinta sax xaakimku loo kulantid xaakimku ku diido isla maalinta waddanka Saudi uga baxbaa lagu leeyahay haddaan ku tarxiilin ka shaqo aad magaranaysa ku shaqeynay habeelaatay ma jirto marka 6 cisho la sugayaa 6 cisho ka bacdi dadku hadday soo dhaweeyaan baarlamaanka la horgeynaya baarlamaanka hadduu ansixiyo taana qalin ku marinaya waa gartay marka aygaas waa shalay naga dambeeyay waa maanta walaalow informationkaas waana search gareyn doonaa waana la soo wadaagi doonaa asxaabta waana ku maasantahay 100% waxaan rabaa intaanan wala deeqo hadii mudgal guriga anu ku kariyay mudgal okay oo bustada barkinta dadkii la guryaha barkimaha nagu sharci yaqaaniinta oo la yiraahdo warkiiskaas noo xareeya annaga waxa ku baxay annaga sameeysanayna noo xareeya hadaba dhib ma jirto anakuwan magaranaysa xitiyaanka baan ku laabanayaa systemka u mareen iyo siday u mareen iyo lawyerka qabsadeen iyo waxaan soo wareysan doonaa maalinka Isniinta groupkana insha Allah igu soo dar magaranaysa cid kale uma baahnin bajaaliyad iyo xildhibaanad ilhaan iyo cid kale uma baahnin 30 ilmood dhalinyaro ayo TBS haysta ay hayteen ku fureen kiiska oo lawyer qabsadeen adama garatay marka ii soo dir inbox waxa ku soo daray raga dhalinyarada inta lambarka ugu diray ku soo darayaan insha Allah war asxaabi waa salaameena caawa TikTok-gii ma malayn kartaan live-ka ugu horreeyay markaan soo galay halka iyo Pakistan iyo Afghanistan iyo India ka dhacay waxa ii soo wada galay hal mar koox wada Hindi ah iyo maaragtay algorithm-kii waa caawa wareertay oo meel bay ka tuurtay waa ka baxay waa ku soo laabtay kaameradii baa dark noqotay hadda markii waxay ka fursan weysay voice chat-kan marka ma garanayo bahalkii balaaya ku kacday caawa balaaya ku kacday quraan saar buu u baahan yahay حتى الدعاء كو أخريه القرآن يدعاء أصاريه حتى ما ركت ولي واكاس سود هذا هدي ولا سبق لي وحونه يا بريت تي الله تيجي أما تيك توك إنتان ديليت جريان سود جين دوراي تي الله تيجي ساي بالفويس كان كسود هذا أبديت كان موجود درن اللي ولا لهن محكمة محلو سوق لي حالات النوجو ورما آيس xalay wallahi billahi program aad u qurux badan baa xalay dhacay dad badan baa maaragtay su'aalo badan oo ay qabeen looga jawaabay aad bay mataqaanaa ugu mahadsan yihiin
gabadhii loo keentay walaasheen nimco oo maskaxda pro podcast iyo Dr. Axmed wallahi aad bay ugu mahadsan yihiin sababtay tahay barnaamijka xalay aad baa looga faa'iiday zahray ma furki waa naga saartaa walaalay mudgal la ilaaha waqta والله مدبر بسم الله الرحمن الرحيم marka waka voice chat intaas ku xun yahay masquuliyi waa lagu dhaqayaa dhibkaas uu qabaa Soomaaliga caawa dhan baa halka lagu falaashaya marka bal soo dhawaada asxaabta meel walba joogtaan waa idin salaameynaa marka bal aan update kala qaadano either caawa teleefankeyga kaamiradiisa halaysan ama TikTok wax si ka ama aqaan marka waan dhownahay brother Somali family waan dhownahay marka TikTok waa